بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعك وخليف حسين محمد maanta waxaan la joognaa qayb kamid ah qaybta indhafiiqista sadaqa jaariya qaybta koobaad waxaana la jooga gudoomiyaha ururka sadaqa jaariya qaybta koobaad ee indhafiiqista al-ikhlas mudana gudoomiye ku soo dhawaaw mahad jeelaal nuur soo dhawow mahad asiga iskiin barayo waxa uu yahay mahad soo dhawow magacayga mahad jeelaal nuur waxaan ahay gudoomiyaha ururka sadaqa jaariya qaybta koobaad ee indhafiiqista dadkan u jeedaan waa dadkii indhaha loo fiiqay oo la fiiqeen walaalaha sadaqa jaariya qaybta koowaad ee fiiqista waxaan qaadanay 7 qof hal qof waxa uu noqday daawo 6 qof u jeedaan waxa waa indhaha loo fiiqay mahado waa tahay mahado barnaamijkana wataan caawinta bulshada Soomaaliyeed ma waxa uu ku egyahay magaalada Muqdisho mase waxa jira wax magaalada Muqdisho ka baxsan ee sheegtaa caalamka inteeda kala deed iyo gobolada dalka Soomaaliya aad ama santahay qaliil hadda waxaan ka sameeynay Muqdisho insha Allah bisha soo socoto labadeeda bisha toddobaad labadeeda waxaan rajaynaynaa in Hargeysa aan ka sameeyno in fiiqista waa tahay mahado aad u maasan tahay maadaama aad mahado aad dihiin dad caawiyo ururka sadaqa jaariya qaybta koobaad ee indhafiiqista al-ikhlas maadaama ay yihiin dad caawiyo bulshadooda intooda kala deeto ee danyarta ah hadafkiina muxuu yahay horu socodkiina muxuu yahay maxaad haminaysaan aad u maasan tahay maama Naciima iyo maama Caasha waxa ay ku midoobeen dadka danta yar iyo dadka masaakiinta inay caawiyaan waxa ahay wakiil u fadhiya ee Muqdisho waxaan rajaynaynaa dad badan oo caawinaad u baahan inay caawiyaan insha Allah waxa kale oo jiro waxaan furi doonaa insha Allah bishaan hadda lagu jiro dhaxdeeda bishii la soo dhaafay waxa la furay iskuul oo loo magac daray ururka sadaqa jaariya qaybta koowaad ee fiiqista ikhlas insha Allah isbuuca soo socda waxaan rajaynaynaa inaan furno madraso aan ugu talagalnay dadka aqoonta inaan wax ku barno inaan qodno ceelal iyo masaajido iyo dhamaan inaan dhisnaa ugu talagalnay maadaama ay wakiilka u fadhiyo Muqdisho kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka sadaqa jaariya qaybta indhafiiqista ikhlas mahad jeelaal nuur aad u maasantihiin taawadayaal meel walba aad joogtaan daafaca caalamka